waxaan wada ognahay in xilliga doorashada sida muhiimka ay tahay in la wada og yahay ugu yaraan 6 bilood ka hor sida doorashada u dhacaysa heshiisna lagu yahay arrintaas ma dhicin mar alla marka loo sii dhawaado doorashooyinka ee aysan jirin wax la isku waafaqsan yahay waxa badanaya tensionka badanaya taasna waxay keeni kartaa dawladnimadu inay meesha ka baxdo ama dhibaato soo gaarto marka aad iyo aad waxaan uga xunnahay in ilaa haddana doorashada sida lagu galaayo aan lagu wada qanacsanayn haddana intii la xalli lahaay lagu xalliyay hab dagaal iyo hab ciidan aadaan uga xunnahay waxaan aaminsanahay inay tahay arrin sharciga iyo dawladnimada ka soo horjeeda keeni kartana dalkan meeshii uu ka yimiday ilaahay ma qadaro inuu u laabto waa ka digaynaa marka ka digaynaa waxaan leenahay dawladda waxa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso dadka la fariisato waxa doorashada galaya waa dadka murashaxiinta ah doorashadu inay xor ahaato oo xalaal ahaatana waxay khusaysaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood mid hadda jooga iyo mid aan joogin marka doorashadu inay xor ahaato oo xalaal ahaato arrin laga tanaasuli kara ma aha doorashadan hanaankeeda dawladda kaliya ka shaqeysay cid kale kala shaqeysay ma jirto dawladdu waa laba heerka dawladda federaalka iyo heerka dawladda goboleedyada ayagaas ka shaqeeyaan annaga waa soo dhaweynay laakiin markii fulintii la gaaray waxa soo baxay khaladaad waaweyn oo laga aamusi karin annaga murashaxiinana muwaxaqanan u lahayn inaan niraahno hanaankan waa khaldan xaqan u lahayn marka waxa aan ka hadlayno waa xuquuqdeeni waana dadka Soomaaliyeed dhamaantood wax khuseeyo marka dawladdu waxa la rabaa albaabadeeda inay furto madaxeeda ay furto dawladnimo Soomaaliya maanta ugu horeyso ninkii yimidna waa baxa laga shak nin kasto yimaado waa baxa miithaalna hadda uma baahdinayno waa buuxan marka anaga waxaan rabnaa kursiga hadii la joogaana nabad iyo sharaf in lagu joogo hadii laga tagaayana nabad iyo sharaf looga tago dadkuna iyagu waa muxaafid iyo mucaarada ay wada joogaan sharcigan ku wada joogaan